wabarakaatu. Waa isku soo noqod wanaagsan. Waxaan soo tolnay koofida kogta meesha ku soo aadi lahayd aan soo tolnay oo 5 wareeg ah. Marka hadda waxaan isku dayeynaa inaan soo dhubino haddii Ilaahay karaal noqdo aan isla socono. Marka halkaan waxaan ku soo tolnay 10, halkaan laba waa 20, halkaan hal kabood oo tolnay, halkaan 2 kabood, halkaan 3 kabood. Marka hadeertaan waa wareegan ka dhigaynaa asal wareeg markii laga dhigo koofidu way soo dhuubanaysaa saa madaxa qofka ee u gasho insha Allah biidnillaahi alkariim waa isla soconeena ila socda. Hadda waxaan sameynaynaa back post gadaalaan ka toleynaa si maaragtay dariiqo sahlan waaye oo si sahal ah ugu tuli kartiin. Marka back post ka dhigaynaa yani gadaalaan ka soo qabaneynaa gadaalaan ka soo qabaneynaa ashan hore markii laga qabanayo xoogaa waxa waaye waa lagu daahayaa laakiin maadaama koofida wareeg ay tahay waxa waaye waan gadaalaan ka qabaneynaa laan hal safa la raaca wixii hadda ka dambeeyay isku imaashaal iyo wax la isku dhajinayo ma jiro wareeg saani ahaan ka dhigaynaa si koofidi maaragtay madax qofka ugu gashay. Wakaas waa soo wareejinay koofida marka waan isku qabaneynaa haddii Ilaahay karaal noqdo. Back post ka dhignay ama gadaalaan ka soo qabanay kii marka hore aan ka tagnay ayaan ku qabaneynaa. Waa ujeedaa inay soo gudatay koofida yani intan kogta inta ku soo aadaysa waaye koofida sasa u dheereynaa waxaan ka rabnaa Jamaican hat ama Jamaica koofida reer Jamaica taasna markii la tolaayo inta badan waxa waaye way ka dheertaa koofidaha caadiga ah. Koofidaha gaagaaban 24 23 laga reebaa lagu reebaa lagu ekeeyaa dhigta agteeda ku eg dhigta korkeeda ku eg ama dhigta ilaa ay dhagaha dabooleysa tan waxa waaye Jamaican hat waa marka waa dheereynaa insha Allah casriga Jamaican hat casriga ah dadka ayaa maan xiiseynayaan siiba ragga aad iyo aad u xiiseynayaan ayaa mahanid sanadan dambe waxaa malaysaa in laga ilbaxay koofiyadii ka gaabnaan koofiyalka shaqada ay xiran jireen macallimiinteena dugsiga iyo maaragtay xirti wadanka qeyr Allah siiyo laakiin hadda waxa waa casri kale ku jirnaa waxa waa Jamaican hat ayaa loo bedeshay wiilish yar aad iyo aad ay u jecel yihiin. Marka waa dheereynaa insha Allah 55 aan ka dhiganaa marka 55 aan gaarno ayaan idin tusinaa insha Allah isku soo laabaneena mar kale. Marka waa soo dheereynay Jamaican hat kala dhacaysa soo saarnay marka hadda waxa idin tusinaa sida afka maaragtay la isaga soo ururinay ashan intan af madax way ku dhexdhacaysaa mugtiin back post ka soo dhignay waa soo dheereynay kogta inta ku soo aadayso waa kaas intii maaragtay madax laga gashanayna waa taas marka hadda waxaan sameynaynaa haddii Ilaahay karaal noqdo waa isku soo ururineynaa ashan madax si madax loo gashto si madaxa maaragtay si fiican loo gashto waxaan sameynaynaa ila socdo waxaan sameynaynaa 1 shan wala aruurna la yareena mugtay 2 waxa ku hasta halkaas 2 god hal mar asla gelinaysa hadhow waa isla wada arkeena say noqonayso markii la isku soo ururiyo maaragtay wajiga foolka meesha ku soo aadaysa markii la soo ururiyo sida ay koofida noqonayso ama xitaa safkan markaan soo dhameeyna haddii Ilaahay karaal noqdo isku soo laabaneena ilaa isla socono. Wakaas waa soo tolnay waa soo yareynay aan ula jeedaa sorry waa soo yareynay marka hadda waxaan sameynaynaa frame ama board qof walba soo u yaqaano sameynaynaa marka frame ka marka la sameynayo waa 3 xabo hore iyo 3 xabo gadaal ah soo inta weeno yar yarta waa soo yareysanay waxaan dhahaynaa 1 senior oo toleynaa yani muxuu ahaa back post ka dhigaynaa 2 3 xabo hore ka 3 ku xigto 3 gadaal ka toleynaa
shamboordaha waxa waaye wuu ka gedisan yahay farta waaweyn iyo faraqyada waaweyn iyo waxba dan ha ka galina automatically wax mushkilad ay leedahay habeeraatee malaha marka saddex hadda gadaal aan kasoo tolnay saddex hore aan ka tolnay aan rabaa halkan halka saddexdaana gadaal aan ka tolnay haddana saddex kale hore ka toleyna shan si iskugu dheeli tirmaan duntan hadda way kala durugsantahay waa lama arkaayo laakiin insha Allah casharada soo socdo ayaan si fiican u arkeynaa si aan maaragtay si fiican ugu fahantiin duu ilaahay karaal noqdo wareeg oo dhan waa kusoo wareej sorry marka waa kusoo wareejinaynaa insha Allah markaas oo dhammeeno isku soo laabaneynaa saddex saf soo toleynaa saddexda saf isla wada arkeynaa hadduu ilaahay karaal noqdo isla soo alxamdulillah rabbil caalamiin maasha Allah waa ka soo dhameynay koofida ilaana la garab kale akhiiran waa soo saarnay dunta iska gooynay soo eegtaa isla arkeynaa kadibna hadduu ilaahay karaal noqdo shaalka toleynaa كوفيدة وحواي ما شاء الله يعني شاب الأسمر كوفيدي سلطولي يا سو مدرن اللي بعصره ساسي نقطة مركا إتب إيش فولكو سؤالي سواء إن لا يريحوا قاقوا أوكي مركا ميزة ذا كوفيدة ميزة ذا وحواي أما في عنان تيدا هرتا وحواي دونتاني وحن هدو كليننا لوس من الوقوقونا waxaa sasa loo xirinayaa maasha Allah labo texture oo kala nooc ah isku haysataa hada dootid sasa u gashanaysaa hada dootid sasa u gashanaysaa soo laabane hada doontid texture kan kor soo aadineebo soo dhanbo maaragtay wareegana aad qaybta hore ama wajiga wajahada keenaysa qofba hadii kii duub yar jecel duub yar oo ka dhigaa kii duub jecel duub oo ka dhigana laakiin waxaa isku haysataa labo texture isku haysataa oo man style yani nimanka style-kooda ama nimanka inta badan waxay riiga waa dharkooda iyo waxooda flower dhar oo ubaxyada waa ku yaryahay ragga dharkooda hadda u fiirsateen marka saa darteed waxa itana nooca ku haysataa itana nooca ku haysataa waa laba nooc hada doontidna wax oo dhan zero ah ka dhigaysaa sasa oo saaray hal nooc ku xirnay kan wajiga ku soo aadaya boorda yar oo qafiif ah waa maaragtay iscaaj kugu sameynaynin wax kale oo maaragtay zaid ahna aan lahayn waa kas waa dhameynay ilaahay waana la garab galay alxamdulillah hadda waxaan bilaabeynaa shaalka aan isla tuleynaa waa idin tusinayaa shaalka waxaa ka tuleynaa 150 silsiladood ayaan ka toleynaa laakiin waa dheer yahay maaragtay mana ku tolan karno ma hadeertan maaragtay ma ku toli karno waqtiga aad u yar yahay marka waxa sameeynaa sample yar idin tusaya hadhowni isagoo dheer morless waa sida maxaan ku dhahaa koofida oo kale ayaa loo talaabo yani wax ka gadisan wax waa riigooyinkan uu yeelanaya riigooyinkan 150 riiga talanaysa silsilad waa silsilado dhaadheer oo la isku qabtay uu noqonayaa marka sidaas oo kale u toleynaa waxa isagana waa front post iyo back post ka dhigaysaa silsilada lagu gudagelinaysaa marna hore ka soo tolay marna gadaal ka toleysaa dheeraanaysaa 150 silsiladaad gaarsiinaysaa si maaragtay hadhoodii shaal kaamil ama qof luquntiisa ku soo duubmi karo ama garabkiisa ka tuurmi karo inuu noqdo
markii silsilada saas ayadoo 150 silsiladood aa ka dhigtay saasaad u tushid isku raacaysid waxawaaye dhinaca kale u gudinaysaa shaqadaada halkan weli waxaan ku guda jirnaa tii koowaad waxaa back post ka dhigaysaa tan marka waxaa kuu soo baxaya nafs texture-kan ama farshaxankan farsamadan aan hore usoo sameynay nooceeda nafsi nooca kuu soo baxayo marka kuu soo baxo shaalkii oo dheer oo farsamadiina isla farsamadii ee tahay isla nooca farshaxanka adiga aad dooratay kuu soo baxayo isagoo garbaha la saari karo marka duntan sideedaba horta miisadeeda waxaa dadka kululeynaysaa waqtiga qaboobahan aaday ku anfacaysaa waqtiga kuleelahana dulduleeladeeda waaweyn oo ku caawinayaan qofkii dadka xiiseenaya jecel waqtiga kuleelaha xitaa inay xirtaan koofi way samaysan karaan ama koofidaa suuqa way yaalaan laakiin koofida hooyada ay kuu tasho ama xaaskaaga kuu tasho koofida kale ay kaaga qaalisan tahay akiid soomaalida agtooda ceeb waa farshaxanka farsamada gacanta ragga inay sameeyaan laakiin waxaa caalamka ragga iyo dumarka shaqada uma kala baxsana so marka kan back post ah kan front post kan horeyaan ka keenaynaa hore markaa ka keenaysidna waa idin sheegay cashan no kan back post ah kan front post noqonaya kan gadaal ka qabanaysaa cashan waxaad rabtaa dunta afkeeda hore oo farshaxanka adiga aad u dan leedahay ama nooca aad koofidaada ee tahay aad rabtid inaad heshid inuu kuu soo baxaad rabtaa mogta marka waxaa waaye waa inaad gadaal ka soo qabataa marna hore ka qabataa front post back post double crochet saasaad ka dhigaysaa 150 ka dhigaysaa silsilada daartid ka dheer waad samaysan kartaa ka gaabanna waa samaysan kartaa yani bas laakiin aniga shaalka aan sameeyay waxaa 150 silsiladood maaragtay dunta xitaa nooca aan soo qaatay waxa waaye basharada asmarka ama dadka midabkooda uu buniga uu yahay sida Soomaalida iyo Afrikaanka kaleeto iyo dadka xitaa Carabaha buniga ah oo aad iyo aad ugu soo baxay marka saas uu noqonaya waxaan idin tusinaa shaalkiyo samaysan waa ka texture saas markaa u samaysid hore aad ka tushid marna gadaal aad ka tushid saas ku noqonaya exactly kan shaalkan ku noqonaya shaalkan midabka maarinka ama ninka maarin asmarka sorry ninka maarinka waxa aad iyo aad ugu soo baxaya aad u qurxinaya xaggeega saas uu noqonaya marka 150 aan ka dhigay silsiladood waxaan soo wareejiyay halkan 20 jeer ayaan marna soo socday mar hore looga keenaa marna gadaal looga keenaya daraftan waxa waaye waa sanduuqyo ama dulduleelo sanduuqyadan waxay anfacayaan maaragtay inaad ku samaysid duntan qurxineys shaalka marka luqunta lagu xiro ama dhabarka gadaal loo rido aad iyo aad u qurxinaysaa waxaan idin tusaa dunta sida u sameynaysiin hadhow waa isku dheelitiraa rabtid iyadoo rafay saas waxtaa waa ku xiran kartaa waxa waaye ayaamaan fashionka ama muxuu ahaa casriga labiska aad iyo aad u horumaray wax dan saas u sii badan oo laga galo malaha marka ayadoo raf ay kala dheerna waa la saaran karaa ayadoo isleegna waa la saaran karaa laakiin waa isleekaysiinaynaa anaga waxaan rabnaa inaan noqono yani perfect wax fiican inaan xirnaa rabnaa marka waxaan idin tusahay waxaan diyaarinayaa dunta dhinacan kalaan diyaarinaa waxaan idin tusaa sidaan u diyaarinaya iyo sida aan ugu xirxireen hadduu ilaahay karaa noqdo dunta in qiyaas ahaan saas u qabsanaynaa marka hore xisaabinaynaa waxaan rabnaa inaan dun fiican oo maaragtay isleekaan sameyno oo si maaragtay wareegi oo isku dheelitirma rabnaa marka dunta waa wareejinaynaa hadduu ilaahay karaa noqdo waxaa u baahannahay 10 xabadood oo sidaan marka
tobanka xabood oo qamrina koob 3 4 5 6 7 8 9 10 toban sasa keliyana tobankaas bay keenayna ka saxarabna maxaa la dhahaa maxaan meesha kasoo laalaada Soomaaliga wixii lagu dhamaa waa aqaanay horta inaan maqaska haduna anfacaya hore waa usoo aragnay xalqado badan laakiin hadda una anfacaya waqtigiisa hadduu yimid wax badan asaga oo shaqalaano iska aha marka kala baxee dunta way isku dhex yaacay way kala deegi kartaa way kala waxayn kartaa waxa loo baahan yahay inaad mar walba indhaha ku furnaadaan si ay u ogaatid dunta meesha ku dhacayso iyo meesha kaaga dhicin inaad kala ogaatid waxa loo baahan yahay so darafteena aawe awal daraf sanduuqyada yaryar wakaas okay awal daraf gelinayna dac daraf qof bas u yaqaan laakiin sinayso si noqonaysa hal mar soo wareejinaysa xiree masha Allah shaqo wanaagsan halanka boodina halka kala tagayna la'aan hadii hoosta iska galgaliyo way badanayaan hadda oo batana laga yaabo inuu qaab darnaado wax qurux badan oo ku soo bixin marka si uu qurux badnaado khayr umur oo soo mutawasidan ka dhigayna waxoogaa maaragtay wax oo soconayo oo haddana qafiifna ee kala fog waxa laga yaabaa inuu shaal naageed uu shabaho hadii maaragtay kan qalada oo xirnay na isla keesina dunta marka hore beeta معليش أنا قولة المصارية كان قرضا أحرني سو سبيكيسيني أنا مقارا كديب وادو بين عشان إنه كرد هذا المبدأ أم هلا حبة كاهرين أم سي أمكن كا perfect idkalo dhameystirana haduu ilaahay karaal noqdo laakiin ogaada shaalkiina inuu yahay channelkiina inuu yahay ku soo dhawaada mar walbaba like iyo share iyo subscribe haygi ilaawina dhaxal hooyo oo idin jecel yahay idinkana waa jeceshiin waan isjecelnahay insha Allah kuwii khayr ku kulmo khayr isku socdo walaal isjecel ilaahay hanaga dhigo khayr badan idin rajeenaya